السلام عليكم دمان umada Soomaaliyeed meel kasto joogtaan maalin wanaagsan inta habeen wanaagsan ay waqti wanaagsan ayaan idin leeyahay asxaabe soo dhawaada in garan inta ku xiran YouTube-kayga aad baan idin salaamayaa soo dhawaada inta aan ku xirnaan soo hoobta in maanta waxaan soo fariistay inaan u hambaliyeeyo gabar walaashay oo YouTuber ah maadaama inkastoo la soo daahay haddana waxaan jeclaystay inaan u hambaliyeeyo waa tuma gabadhaas walaashay Nasra Abtidoon oo gaartay 200 oo kay runtiina ah gabar aad u dadaal badan ma sha Allah aad iyo aad waliba hadda hay gabdhaha Muqdisho runtii waxaan dhihi karaa ayada iyo Shaadi Sharaf waa horyaalka gabdhaha YouTuberada Muqdisho laakiin hadda Nasro ayaan u hambaliyeenayaa Nasro waxaan ku leeyahay abaa macaan hambaliyo adiga iyo reerkaaga iyo asxaabta channelkaaga ku xiran anagu kamid ahay hambaliyo ayaan leeyahay guuleyso inta iyo in ka badan ba insha Allah adoo milimaad gaaran ku hambaliyeenana waan gaari doonaa insha Allah gabar kasta Soomaaliyeed waxaan leeyahay oo dadaalaysa ma sha Allah Ilaahay ku garab galo mid jiifta in dadaalayna waxaan leeyahay jiifka ka kaco dadaal Nasro runaantii waxay ahayd in iftiin gabdhaha Muqdisho iftiin ayay ahayd marka dhanka YouTube-ka la dhaho ma sha Allah oo waxaan maleynayaa gabadha ugu horeysay YouTuber Muqdisho laga bartay inay tahay aadna way dadaashay aad waliba iyada hooyo ah caruur xanaanaynayso ma sha Allah maxay shaqooyin badan adduunka isaga furan tahay haddana kaala iska arag muuqaal qurux badan meelo aan islaha aniga waxaan is dhihi jiray xamar ma aha meelaha kooda meelahaas carabaha joogtaa maleynaysa isu dhihi jiray Muqdisho leeb isoo yeerteen marka waxaan leeyahay maadaama ay 200 oo kay gaartay guuleyso inta ay in ka badan ayaan ku rajaynaynaa hambaliyo mar labaad ayaan ku leeyahay walaashay macaan adiga iyo family-gaaga iyo xirta YouTube-kaaga ku xiran oo dhan hambaliyo 200 oo kay hambaliyo ayaan ku leeyahay asxaabteedana waxaan leeyahay soo dhawaada idintana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.